kulan wacan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Bowlers Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxa kamid ah Taliban oo bilowday baadigoobka dadkii u shaqeeyay jiray reer galbeedka dil toogasho oo ka dhacday Caabudwaaq ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa gobolada Baayi Bokool oo baxay loona daadgureeyay Tigray daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan wararka naga soo gaaraya degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maanta degmadaasi dil toogasho lagu geystay nin kamid ah dadka deegaanka oo caan ka ahaa Caabudwaaq ninka la dilay waxa rasaas ku furay nin kale oo is-afdhaafeen kadib markii uu soo kala dhaxgalay khilaaf xooggan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah wararka ayaa sidoo kale sheegaya in marxuumka lagu dhuftay dhowr xabadood kuwaasi oo sababay geeridiisa waxaana lagu soo waramayaa in ninka dilka geystay oo ka baxsaday goobta ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliska degmada Caabudwaaq kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada ayaa xabsiga dhexe ee degmada Caabudwaaq ku xiray ninka dilka geystay waxaana bilaabanayso baarista kiiskiisa sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud oo kamid ah degmooyinka ugu ammaanka wanaagsan deegaanada maamulka Galmudug ayaa haata waxaa mararka qaar ka dhaca dilal la xiriira aanooyin qabiil waxaa ka bilowday deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed daadgureen iyo dib u celin lagu sameeyay ciidamada Itoobiyaana ee ka baxsan Amisom ee ku sugan deegaanada ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ciidamada Itoobiyaanka ee ka baxsan xidaabka Amisom ee ku sugnaa Soomaaliya ayaa la sheegay inta u dhaxaysa 5,000 ilaa 7,000 oo qof kuwaasi oo sheegtay inay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Amisom inkastoo Abiy Ahmed uu jeclaan lahaa inuu difaaco danaha nabad iyo nolol kuna haayo ciidankaasi gudaha dalka Soomaaliya haatanna wuxuu culeys xoog leh kala soo dirsay ciidamada Tigray oo gacanta ku dhigay qaybo badan oo kamid ah taasi ayaana sababtay inuu si degdeg ah uu ciidankiisa uga baxo dalka Soomaaliya ilaa haatan lama yaqaan tirada rasmiga ah oo Abiy Ahmed kala baxayo dalka Soomaaliya bixitaanka ciidanka ay kala bixayso Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhax abuurtay hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed walwal iyo cabsi la xiriira in ururka Al-Shabaab uu xoog kula wareego deegaano ka tirsan gobolka Baay kooxda Taliban ayaa bilowday baadigoob dadkii u shaqeyn jiray ciidamada NATO iyo xukuumadii hore Afghanistan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay qaramada midoobe ayaa sheegtay in kooxda Taliban ay guri kasta ka baadigoobayso si ay gacanta ugu soo dhigto dadkii u shaqeyn jiray isbahaysigii weerarka ku qaaday Afghanistan warbixinta ayaa lagu sheegay in kooxda ay hanjabaado u dirayso dhammaan dadkii la soo shaqeyn jiray dowladii hore waxayna qaramada midoobe sheegtay arintani ay tahay mid halis ku ah dhammaan dadkii la soo shaqeeyay xukuumadii hore kooxda Taliban ayaa isku dayaysa inay dadka Afghanistan ku qanciso inay jirin cid ay ka argudanayso waxayna soo dirayaan fariimo kala duwan tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen caasimada Kabul laakiin waxaa jira cabsi laga qabo in Taliban ay haata wax yar iska bedeshay tii hore ee 1990 oo lagu eedeeyay in ay fashay falal aad looga naxay digniinta ku saabsan in kooxda ay beegsanayso caawiyaashii reer galbeed waxayna kamid tahay dukumeentiyadii qarsoodiga ahaa oo ay sameysay xarunta Riibto ee Norwegianka ah ee falaqaynta caalamiga ah oo xogyaha sirdoonka siisay UNHCR waxaa jiro shakhsiyaad aad u tiro badan oo ay haatan bartilmaameedsanayaan Taliban hanjabaaduhu waa mid cad ayuu yiri Christian Namela oo madax u ah kooxda ka dambeysay warbixinta oo la hadlay warbaahinta qaar waxaa jiro haddii aysan isa soo dhiibin mooyee Taliban inay xidi doonto oo dacweyn doonto oo su'aalana weydiin doonto oo ciqaabi doonto xubnaha qoyska iyo iyagoo matalayo shakhsiyaadkaasi waxa uu ka digay in qof kasta oo ku jira liiska madow ee Taliban uu ku jiro khatar aad u daran daawadayaashaas ayaan kusoo gabagabeynayaa war wixii dal iyo dafaha caalamka idinkaga hanay waxa warka idin soo saaray oo idin akhrinay anigu Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar taan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaan